Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada dhaqankaab sheeko cusub. Beri baa waxaa meel ku wada noolaa laba bisadood. Waxay ahaayeen saaxiibo isweheshada oo meel wada hoyda habeenkii, maalintiina mid kasta ay gaar u doonato cuntadeeda. Maalin maalmaha ka mid ah waxa ay ku heshiiyeen in israacaan oo ay wada doontaan wixii ay cuni lahaayeen maalintaa. Iyagoo wada socda waxa ay meel fog ka arkeen keeg meel yaalla. Labadoodba aad ayaa ugu soo yaaceen iyadoo isla mid kastaaba yaan lagaaga dheerayn. Waxay isku mar yimaadeen meeshii uu yaallay keegu. Mid kastaa waxa ay tidhi aniga ayaa kaaga soo horreeyay oo qaadanaya. Mid kastaa waxa ay doonaysay inay keligeed iska qaadato oo ay cunto. Waxa ay ku heshiin waayeen inay qaybsadaan, oo mid kastaa waxay tidhi aniga ayaa wada qaadanaya ama aniga ayaa gacantayda ku qaybinaya. Muran dheer kadib waxa ay ku heshiiyeen inay ula tagaan cid u qaybisa. Waxa ay baadheen cid u qaybisa. Xoogaa markii ay socdeen waxa ay arkeen daanyeer geed fuushan. Waxa ay u yeedheen daanyeerkii. Waxa ay ku yidhaahdeen kaalay cuntada noo qaybi. Daanyeerkii oo aan beryahaaba arag wax cuntaa aad ayaa ugu farxay. Waxa uu u yimi bisadihii. Keegii ayaa u qaybiyey 2 qaybood oo ay midi weyn tahay. Waxa uu ku miisaamay gacantiisa. Tii miisaan cuslaatay ayaa uu ka goostay in weyn oo uu iska cunay. Haddana dib ayaa u miisaamay. Waxa cuslaatay tii kale. Waa sidii uu doonayay. Haddana waxa uu inka goostay tii kale. Sidaa ayaa uu ku waday ilaa uu dhameeyay. Markii uu dhameeyay ayaa ay bisadihii soo eegeen iyaga oo yaaban. Ku yidhaahdeen cuntada ma inaad naga cuntaan kugu keenay mise inaad noo qaybiso. Inta uu daanyeerka aad u qoslay ayaa uu ku yidhi beryahaaba wax cuntaa ma arag, cunta ay keenteen. Nacasnimadiina idinka ku heshiin waayey. Ordoo iska tagay imkana. Inta uu cararay ayaa u fuulay geedkii u dhowaa.